tukanaan ka sheekay laakiin tan kale oo berigi aan Masar joogay ta iyada waa noocan ma waxaan oran karaa berigaas nin fiican baan ahaa وانت انا ادويه iyo mashaakil iyo guur iyo baqti iyo bali iyo waxaan mashaakilkana dhagal inta ana galinayo dad iska yaro fariido waxa iska aha quraankaadu akhriya usbuuc kasta quraanka waa dhamay jiri iga ma baq yani intaan ardayga meesha ka aha fi kulli usbuuc laazim quraanka waa ina dhamay anigu xaalad iska fiican ku jiro oo dhikrigaygu iska fiican yahay ma waxaan imid airportka Qaahira waa 83kii way bariyahaas dabadeed kutub badan baan intaan iibsaday bari baan inoo aan daris ahayn oo fiican oo xaajada leeyahay waa intuu soo maray 300 oo ginisi 300 waa lacag badan waxaan ku gatay kutub fara badan baan ku gatay macrad kutub intaan tagay kulkaas aan karaatiin kutub wata ayaan imid tigir baan wata meeshii markaan imid miisaanka diyaaraddu waa diyaaradda Somali Airlines waa laakiin kan kontorka jooga waa yar Masriya مساعدة ماشي كاش قيسوا ميزان كوساري لعق بدن بسوا بحدي وحيري لعق فر بدن ودي أنا هاي نبوش أقول أنت سألك الروا ما هي يعني ما هي مركا أنا كل جيسي وقت أقول كيف والله ما عندي بال أنا قاعد مركا نودر وشين يعني وحوا يصير الصومالي مركا ليلا أنا قاعد نو صوفيين يسميه يعني ساسو كذا صومالي زوجته كان صوفي واي أنا قاعد نو صوفيين يسميه واحد يلي سابر لعقته كان وقتي ضد بدن باكو دبا تاغاني انا قال له من وقتي والله ما يعني ما عندي فلوس markaas uu mas'ala rabtay inaan ku dhoofto haabana wuxuu hadaba mid yeel kutubta aan dhoofin adiga iska joog kutubtaada tigirkaaga oo dhanba kutubtana qaadaysa aan kutubta ku dhoofin adiga iska joog ma yeelayaan waa inaan dhoof hadaba wuxuu yiri adigu dhoofo kutubtan ka tagay karaatintan xagga iska ma yeelayaan kutubtan waa inay la dhofto marka uu xanaaqay marka arsaa ku ana uu tashtarid علينا anaga hada ado hada saas ay adrabta hada ina anaga shardi samiya atahaddaak maxaan oran karnaa hada Soomaaliga ya arwa kaas oo kale yani تحدي بان سمينيا بود ان هذا ادي كتبتها ودا دوفي انا سي الله ام بيغا نقطه waxaan waa ana atahaddaak in aniga kutubta wada doofay aniguna taxaddi baan la imid baan illa aniga kutubta wana wada doofay wallahi inaana waxaan ogahay iyo wax iga dambeeyay ayna jirin laakiin ilaahay muxuu waafajiyay saq dhaxay ahaydo diyaaraddu waxay baxdaa 6 subaxnimo meelahaas talyaaniga ka timaada xamar bay u socotaa saqdaxay ahaydo kutubtii buu meel xagga igaga tuuray baasaboorkaygii iyo tigirkii baan qaatay masaajidka iska galay wardigay quraanka iska akhristay habeenkii dhan iska tukanay ilaahu aniga kutubta wada dhoofi baan ilaahu aniga kutubta wada dhoofi yana kala harin wallahi diyaaradda counterkeedu waa la xiray waqtigeedu waa dhamaaday waa la xiray dadkii rakuubka ah meesha fariisteen aniga wax ii go'an ma jiro dabadeedna waxaan iska imid masaajidkii salaada subax baan tukanay wala adimay wala aqimay dhar waxaan qabay markaas dharka culimada iska qabayo jubbad iyo iska qabayo dharkan azartay jubbad baan qabi jiray imaamad iyo qolon baa tirina tuji salaadii baan iska tujiyay salaadii markii aan dhameynay aan salaadii ka baxay ninkii igu xigay ee safka fadhiyay wuxuu ahaa nin daabit yani darajo sare leh oo askari ah xidiga far badan ka muuqdaan ayuu ahaa markaan soo fiiriyay ninkii ilin baa ka socota waa ooyay yabki wallahi yabki bayna yaday Allah subhanallah marka baasaboorkayga iyo tigirkana meeshay yeeleen salaada aan ku tukanay ila ma hadin baasaboorkay tigirkii buu qaaday wuxuu fiiriyay diyaaradda ay tahay iyo waqtiga ay maaragtay tahay wuxuu ogaaday in diyaaradda Somali Airlines tahay waqtiga baxayso wuxuu ugu yiri ya akhi sheekh fadilat sheekh barakallahu fiik diyaaradda waqtigeeda waxba nooga dhiman kowde xoogay quraan noo akhri xoogay quraanka noo sii akhri quraan kale noo sii akhri annagu iska jidbaysnaa
quraanka baan u suwad asagina oo hibbo ka shaqaal ninkii wuxuu noqday ma taqaanaan amn al-matar wax la yiraahdo jira masaaridu amnigoodu xoog bulaha amn ad-dawla matarka amnigiisa ninka ugu sareeyo aha yani matarka dhan isaga ugu sareeyo qof hadli kara male uu noqdayba markii quraanka dhameeyay waa bay kaxay xafiis kor ugu yaala oo quraasi badan taal lagu fariisi shaahi alaab uu dalbay wax yar kadib baasaboorkii wuxuu yiri maxaa u sameeysan weeyday counterka oo miisaankii wuxuu sameeysan weeyday marka anu ma ashtako waxaan wallahi xoogay mushkil ay haysato miisaankii iyo ayaanan ma aragtay wax iga si ahaayo marka ma dhameeyay markii uu telefoon diray yaa jooga meeshaas oo hebel baleey u yara jibu kana soo qabta wallahi ninkii oo ordaya ayaa la keenay xabeesku soo galay subhanallah markuu arkay ila wasgaranayna ani isaga taxaddi ma naga dhacay markuu arkaano ninkan waliba ninkan yani ixtiraamayo kursiga shaqada ma fariisanin kursiga soo horjeedo fariistay markaas buskudkii iyo shaahi wixii hor yaala yani madaxda sare baa soo loo yaala mugti markuu arkay ninkii waa iska jaray waa gariyay isagii oo dhan wallahi sheekh كيف ايوه ساعة البيت ما حاجر مركز ور قبقبت جوجي نكان محاور اقيس يقول ما يوي ليش ما خلصت هذه البركه يا اخي مركزو يعني على ويس دبا مري سو وحول هذا دمينايسي مركزو باسبوركي تيركي u dhibeero orado tago karaatiintiisi kutubtiisi u soo xaree boarding passkii diyaaradda ku fool laana ikan hadda markaas waliba canaan dhagta kala raacay oo yiri waxa waxba ahayn baad hormarinaysaan dadka wanaagsan oo ka tagaysaan ruux subhanallah alazim wallahi inaan raacin meesha iska fadhiyay uu tagay isaga karaatintii uu meesha ku tuuray uu intuu aaday oo ururiyay oo diyaaradii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boarding passkii markaas waliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay oo maaleesh fadilta sheekh naga raallahu naga warhaysa shaqadeena waxba iska badan maaleesh ma shaqadeena badan subhanallah kadib laba kartoon oo hatta aan gacanta ku reebtay markaan diyaaradda si fuulaynay ninkii wuxuu ku yiri labadan kartoon maxaad u reebato maxaa u saari weeyay waxaan waxoogay miisaankii askari buu dhiibay wuxuu yiri ninka lama fatashi karo kow ninkan diyaaradda saar albaabada dadka lagu fatasho lama fatashi karo waa kow talabaad kutubtan uu gacanta culayska ku wado asaga uu shan qaaday kursiga diyaaradda markuu fariisto la ful diyaaradda markuu fariisto oo agdhig ka soo tag waa isoo wadacayo ninkii madaxda ahayo kuwa marka waxaan xusuustaa Soomaalidii markii hore fariisatay meesha diyaaradda si raacaysay qaar ba marka waxay leeyihiin ninkan wasiir awqaaf miya waxa ay leeyihiin wasiir dambi ducada iska furreyd ilaahay baa iska keen ajiib marka qasada noocaas markaan ka sheekaynayo ani tazkiyada nafsi ugu ma jirto wallahi alazim anu shakhsiyan inta meesha fadhida ina idin kulliita ayaan yaqiinsanahay ana tacbaan ma عندي shay laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqa la yeelano rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqa la yeelano oo ilaahay jeclaano oo ku xidhanno oo saacad kaste dikrigiisa aanu laazimno ilaahay umurteena waa noo sahlay wax naga halaabayaana ma jiro khusuusan mawduuca ku saabsan ذكرك إيه مداومتي لا دائمة في هذه البلاد ودمدان وودن ما غفلا وددك دينتي إلهي كفوقيهين وإلهي إلا إلوبي ودلكي يا جيده يا بوله يا واحد نبا وذا أوي يا واحد ربان دد إلهي دوش وذا كحوشي ربان إذنك إلهي با إذن كان ما شان إذن كان ذكري سبضي